وهاجاك دقيستيالي مكانا وحا كسو دواتان قايبتي أفراد برنامج هذه حرير كانوا كجهليني تاريخ تا سومالدا برنامج كهورنا وحا قدام بيان كسو قادنا مركي بقر كي دالك إثيوبيا بقر حيلة سلاسة وكشجع مقالة قبل تهرة إن دتك سوماليدو أي كمديهين qoyska weyn ee reer Ethiopia inta kadib hadaba waxa sii xoogobay doontii Soomaalidu ay doonayeen inay madax banaan helaan koonfurta iyo waqooyigaba iyadoo markaas ay hormood ka hayeen xasaabtii SNL iyo SYL bishii December sanadkii 1959 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa ay gaareen go'aan lagu soo afjarayo xilligii Talyaaniga loogu dhiibay koonfurta Soomaaliya inuu maamulo waxaana ka dhigan waqtigaas inuu noqdo bishii July 1 sanadkii 1960 waxaana taas laga soo horeysay waqtigii markii hore loogu tala galay muddo 6 bilood ah Umar Ata Qalib oo ka hadlaya ololihii gobonimo doonka bal hadda mar kale aan ku celino bishii May 1959 ayay soo saareen qaraar ay leeyihiin waxaan siinaynaa xorriyad istiqlaalkooda ha qaateen 17 February ee sanadku markuu 60 yahayna election ka dhaco doorasho ka dhaco halkaas aad safxad cusub ka bilaabantay markaas dadkii kaceen oo maxaan ku dhahdaa shucuurtooda samada tagtay yar iyo weyn rag iyo dumar markaas aad deeto afar xisbi oo siyaasadeed ayaa markii waqtigii yimid ka qayb galay doorashadii SNL NUF USP iyo SYL doorashadii markii la galay waxa deeto helay aqlabiyadii xisbigii la oran jiray Somali National League 20 kursi ayuu helay USP waxay heleen oo la oran jiray United Somali Party 12 NUF National United Front kursi buu helay halka waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo markii dariiqada Ingiriiska la xisaabiyay dadkii vote ka bixiyay SNL iyo USP waxay heleen 55 boqolkiiba 55 NUF-na dadkii markii la xisaabiyay waxay heleen 45 boqolkiiba 45 laakiin haddana nidaamka Ingiriiska ayaa ah kursi walba laba nin la kala dooranaya haddii mid keeno kun ka kalena uu 990 keeno ka kun ka helay amba la siiyay u qaadanaya sidaas awgeed ayay taasay ku dhamaatay kaasi waxa uu Umar Ata Qalib oo ka hadlayay sidii lagu helay gobonimada iyo doorashadii ka dambeysay bishii May hadaba labadeedii ayaa hogaamiyaal ka socday Somaliland ay yimaadeen magaalada London si loo jaro xiriirkii isticmaalka ah ee ka dhaxeeyay Ingiriiska waxa waqtigaasi loo ogolaaday in xornimadooda ay qaataan 26 Juun sanadkii 1960 wafdigii barigaasi London yimid waxa kamid ahaa محمد حاجي إبراهيم عقال بريغاسي ورئيس أسية لانتا أفضل الصومالية إيدا عدا BBC دا وحا وعقال كيوجي waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay iskooda secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan maleynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxaan ma dawladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asaxaatee inba meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dawladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baaray dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baaray bixi hadalkii waxa weeye guntiisi bisha 1 July 1 inaynu dawlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiis noqday maxamed xaaji Ibraahim Cigaal waxa kaloo isla maalintaasi ka hadlay hawsha u taala dadka Soomaalida dawladnimo loo qayliyaa dawladweynaha doonina la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylina helay dawladnimadiina asaata ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagayeen July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ay ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta
tala weyn weeye inaynu isu talin karno wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga bax ajnabiga inagii maanta leenoo kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxa inagu la qabtay وما هذا اللي ما انتبه الدنيا كم بيننا ما تهينيو ما بيحب بنان ما بيحب بنان وما هذا اللي ما بيحب هذا اللي مقدقي ليس لقو ميريو وما هذا اللي مقدقي ليس لقو ميريو ما انتبه إليه وين موقنا هذا اللي ما بيحبنا وهذا اللي ما بيحبنا waa tahay dhegaystayaal haddaba soomaalidii talyaanigu xukumayey iyo tii ingiriisku xukumayeyba waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay kowdeedii sanadkii 1960kii dhinaca waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horreeyey maalintii calanka la saaray magaalada hargeysa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan timacadde isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma weydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare saahidiinta islaamkoe subxisaa jimcayaashiyo sibyaanta iyo haweenku calankaysa hadsheenow cidina kaanayna siinine saatir noogu yabohayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare allah u naxariistee cabdilaahi suldaan timacadde oo ka gebiyey habeenkii calanka la saaray magaalada hargeysa intii haddaba aanay labada gobol aanay xornimada qaadan waxaa muddo laga wada hadlayay sidii loo midoobi lahaa arrintaasi sidaa u dhacday waxay noo faahfaahinaya mar kale cumar artaqaalib shirkii ugu horreeyey ee somaliland baarlamankeedii uu qaatay ayaa wuxuu u diray taar soomaaliya baarlamaankeedii oo markaa uu madax ka ahaa aadan cabdulla cusmaan iyagoo leh haddaanu reer somaliland nahay baarlamaankii masilayana aan nahay waxaanu doonaynaa inaanu mid noqono calan keliya yeelano dawlad keliya yeelano iyadoo aan shuruud lahayn waxaanu doonaynaa arrintaa inaad si degdega wax uga qabataan noona soo jawaabtaan baarlamaankii soomaaliya aad buu usoo dhaweeyey arrintaas mabda ahaan laakiin kumay degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arrintaasi sidaas tallaabadii ugu horreysay ay saas noqotay ayaa aadan cabdulla cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hogaaminayo dr maxamed sheekh gabyo oo markaa ahaa minister of constitutional affairs yacni wasiirkii arrimaha dastuurka
iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan. waxay markaa kusoo horeeyeen unionkii aan idin sheegay Somali Officials Union oo aan saan hore idin sheegay ahaa aad iyo aad awood xooga lahaa, dawladuna ictaabsan tahay, dadkuna ictaabsan yihiin. marka maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii qamaamuurtaha sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin, ayaan isugu yeedhay shir. waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey, waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibano, taasoo ah waxaanu maqalay Somaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo, maxaad shuruud haysaan? odaygu wuxuu ku soo adkeeyey wafdiga waa in shuruud lala yimaada intaan midnimada la hirgelin. markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota. haddaan idin xusuusiyo, annagu markaa yani powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro, laakiin waa urur cid waliba dawladda ingiriisku ay taxgeliso, dawladda soomaaliyeed markaa dhalatayna ay taxgeliso, dadka soomaaliyedna ay taxgeliyaan. waxaanu shuruudda soo socota qodobkii u horeeyey wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba Somaliland amba Soomaaliya, prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa. waa qodobkii ugu horeeyey. qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60. qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay. qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto, xataa maanu odhan muqdisho, safaaraddii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale. jeyshka wadaniga ah waa in nin sarkaalah oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa. booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa, midna Somaliland ay hogaamisaa raggeedu, midna Soomaaliya raggeedu uu hogaamiyaa. shaqaalaha dawladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la odhan jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo, waayo waxaanu ogaanay xagga Soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyey. markii dabato ay barlamaankii u tageen, barlamaankii Somaliland, odayaashii xisbiga iyo dawladda markay u tageen, waxa ay barlamaankii ay caddeeyeen, waxay yidhaahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn. macnaahu waxaanu nidhi biduun qayd oo shart, shuruud la-aan baanu ku imanaynaa. marka iminka anagu iyadoo caynka aanu nidhi iminkana shuruuddan ma doonayno inaanu idin dhiibno. markaas bishii abriil 15 ayaa wafdi loo diray muqdisho uu hogaaminayo maxamed ibraahim cigaal. odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota: axmed xaaji ducaale oo ahaa ministry wasiirka tarawaadka dabiiciga ah, cali garaad jaamac wasiirka howlaha guud, xaaji ibraahim nuur wasiirka arrimaha bulshada. waxaa kaloo baarlamaanka ka raacay yuusuf iimaan, maxamed cali faarax, cabdullaahi maxamuud qablan, muuse rabeyle. aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey markii ay tageen, dadkuna u soo dhaweeyeen, saaxiibadood baarlamaanka kusirayna ay usoo dhaweeyeen. maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa la isaga hor yimid. haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba Soomaaliya, waxaa chairmanka ahaa shirkaas aadan cabdul cusmaan oo markaa baarlamaanka u sareeyey, cabdullaahi ciise oo prime minister ahaa, maxamed sheekh gabyow
oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka, maxamuud cabdinuur juuju lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo isgaadhsiinta, maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta, sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda, xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka, cabdulqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka, iyo xaaji cabdillaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad. marka bisha 16 ilaa 22 yani abriil ayaa la fadhiyey. kaasi waxaa cumar carte qaalib. waxa isaga haddaba aanu arrinta isna ka waraysanay ku saabsanaa isku darsiga labada dhinac. cabdilqaadir maxamed aadan soobe oo sidii cumar carte uu sheegayba ka mid ahaa guddidii ugu horreysay arrintaasi isugu timi ee ka wada hadlaysay, ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya. su-aasha aanu weydiinayna waxa ahayd sida tan: cabdiqaadir, waa tii la isku darsamay sidii imika aad lahayd saraaxad ha loo wada hadlana dadka in wax badan laga qanciyay rabaan bini aadamku. markii la isku darsaday wax shuruudihii may jirin oo waa tii la israacay. Soomaali weyn kalena waaba la sii doonayay. maxay ku dhacday bay kula tahay adiga fikrad ahaan in koonfurtu madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxdii ciidamada intuba ay koonfur noqdaan iyo caasimadii? waxaan ku leeyahay waxay ku dhacday waxa waaye condition ma jirin. conditionkii la rabay in la keeno Somaliland يعني واسك ديبتي واسديبتي marka wax shuruudo lagu xiray ma jirin conditional jiraa'iya qabiil baan hayo kana hayo midna ma jirin. waxay raadeen nimid waa ka loo taliya. jamhuuriyaddii Soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa Soomaali weyn. dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dawladdii Soomaalida ka qarsoonayd. ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee labadii gobol ee midoobay ay yeesheen oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmarka Allah u naxariiste oo arrintaasi marka hadlayay waxa uu yidhi: nasiib darrada nahaysaa waxa weeye in wadamada Afrika ee dariska aanu nahay ee ay tahay inaanu ka shaqayno kor u qaadida xiriir saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhexmara inaana ahayn kuwa iyagu daris ama jaarka noo ah. wax dariska iyagu yahay Soomaali aanu wada dhalanay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodin aan loo miidaandayn. waxaanu wadaagnaa af, habnololeed, dhaqan iyo diinba. markaasi sidee ayaanu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah? 29 bishii abriil sanadkii 1961 ayuu Cabdirashiid ereyadaasi ku dhawaaqay. haddaba cumar carte qaalib oo muddo dheer ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ka horna ahaan jiray danjira Soomaaliya dibadda oo fadhiya, oo aan wax ka weydiinay dhibaatada Soomaaliya ay kala kulantay dalalkii kale ee Afrika marka ay timaado Soomaalidu dhulka ay sheeganayso. waxa uu cumar yidhi: markii istiqlaalka la qaatay Soomaalidu ay midowday, waxa markaa dawladihii markaa jiray ay ka dhigteen bartilmaameed siyaasadda dibadda in la xoreeyo dalalkii kale ee Soomaaliyeed ee maqnaa. waana la hareereeyay bilxaqiiqa. isbahaysi baa dhacay, yani annagana la hareereeyey, yani Soomaalida la hareereeyey, iyadoo dawlad yaroo markaa soo koraysa ah ayaa cidhiidhi weyn la geliyey. adii sababa waxay noqotay xaruntii jamciyaddii Afrikaanku ay samaysteen madaxda Afrika OAU. boqor Hayle Salaase wuxuu ahaa nin caan ah, nufuudna ku leh adduunka. waxaanan odhan karaa qaraarkii madaxda Afrika ay gaadhay ee OAU-da ku soo baxay magaceeda isagaa ka dambeeyey ee la yidhi waa in xuduuddu sidii isticmaalku uga tegay ay ahaataa. cumar carte qaalib, qaybtii afraadna intaas ayay ku dhan tahay. sidaa iyo nabadgelyo.